السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحاب قالية سيتهين مفيعنتهين من نبات قبتين إلى إذن كيسوا إذي رجينا سودة دواذا ملكستو أدونك كجوكتان وماموانا إيا مركله إيا مالكله ما شاء الله خير يا فرحة إلى إذي كرجينا أصحابتين قالية سودة دواذا channel كان waa channel cusub waa channel كيني aan idiin ballan qaaday waqti dheer raalli ahaada hadda i wadaa danta waa channelkii dumarka Soomaaliyeed meel kastoo adduunka joogtaan waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr badan iyo farxada ilaahay idinka rajeynaya soo dhawaada welcome channelkan idinka iskale idinkaana liigu baaqay idinkaana liigu deeqay idinkaana codsateen amuurta khayr allaha ka dhigo barnaamijyo badanaa soo socdaan rag iyo dumar quseeyo dhalaan waayeel hala safro khayr badan iyo farxada ilaahay idinka rajeynaa waqtiga qaadatay in la soo jawaabo meel gooni in liigu baaqo adeeg wanaagsan allaha noo soo dhiibo anagana aniga iyo tiimka igu xiran intaas jecel walaalaha in wax loo qabto ayagana ma sha Allah asxaab badan ay igu xiran khayr allah idin siiyo soo dhawaada nasibooda nala fariista noo duceeya annagana allaha noo sahlo waa run waxaa qabanaysid ma ogid ilaa lagu faa'iido ilaa laga duceeyo ilaa la fahmo oo wanaaga lagula arko marka allaha noo soo dhiibo wax wanaagsan oon ummadda ugu adeegno oon ugu adeego anna allaha ii soo dhiibo ducada waa lagama maarmaan asxaabay soo dhawaada khayr badan iyo farxada ilaahay idinka rajeynaya dhammaanteenba ducada hore iyo gadaal ha u socoto marka channelkan wax saas ugama duwana channelada kale iyo meelaha kale oo saaxiibka ku nahay hase yeeshee wuxuu ku caleema saaran yahay haweenka dumarka barnaamijyadiisa waxay u badan yihiin barnaamijyada dumarka quseeyo haddii ay meelo kale taabanayaanna waa arki doonaa laakiin muhiimadda waa in dumarka si qaasa loogu adeego maadaama ayagu codsigoodu badan yahay baahidoodu badan tahay inta badan ay dhahaan su-aalahaasa laga soo jawaabo marka waa su-aalaha laga jawaabayo magac lama sheegayo laakiin waa su-aalaha ee walaalaha soo dhiibtaan ood aragteen ku dhex dhumo guruubyada ama ku dhumo channelka komankiisa marka su-aalo badanaa la qoray annaga dhana aan fahanay inay bulshadina u baahan tahay siday walaasha uga cabatay ee bulshadina ugu baahan tahay marka insha allahu khayr waa dadaalaynaa adinkuna dadaala su-aalaha qaaliga soo dhiibta ogow arrinka adiga ku haysto walaalaha kalena wuu haysan karaa annaga dhan uuna haysan karaa mararka qaar arrinaa ka dhawaajiseen anigana waa arkay meeqa maray igu dhacday inaad arrin adinka ka cabateen anna aan soo maray ama aan markaasba ku suganayo marxaladaas marka intii nool way wada aragtay situationada inta dhimatayna allah yarxam raaximiin marka xaal adduunyo waxaa mudaa inaan ka simanahay hadduu qof qufaco qofka kalena maybe wuu soo qufici jiray ama wuu yaqaanaa ciladaha hargabka iyo waxyaabaha ku dhaco nafta hadduu qof lugaha xanuunaan dadka dhan luga ilaahay intuu siiyey way arkeen luga xanuunka ama luga garaaca ama inay ka fooljignaadaan way tahay waayo ayaguba hadda ilaahay lixaadkaasa alla ugu deeqay hadduu qof indhaha ka cawdo dadka dhan intuu ilaahay ku deeqay way haystaan indho haddii dhag laga cawdo dadka inta badan way haystaan dhago haddayna shaqaynayna xataa dhagahaaga ma rabtid weli inay biyo ka daataan inuu dhiig ka yimaado inuu dheecaan kale ka yimaado sax marka gabdhihii hore iyo xalkii ay raadiyeen ay heleen iyo gabdhaha hadda xalka raadinayo waa uun aqoon kororsi horay gadaal u socoto haddaa fahanteen dhageysiye waayo waxaan anigu uun soo gudbiyo haddaa dhageysateen amaba aa aragteen tusaalaha adeegyada bigjarada qoraalada idin horyaalo waa uun aqoon kororsi horay gadaal u socoto maadaama anigu arrimahaas aan ka shaqeeyo dadku intii markaas heli karto ama haleeli karto ay igala garabsadaan xaalkooda siduu yahay waa wixii uun lasoo ururiyey wax dad xal lala raadiye ahaa wax xal loo hele ahaa wax laygu yiri ummadda maaragtay uga dig ahaa ku dardaarmi ahaa ugu baaq ahaa waa uun aqoon kororsi full information intuu alla noo soo dhiibo oon horay gadaal u wadno si adigana aad u ogaato ama aad u fahanto ama aad xal u raadsato wax kaloo meesha yaalla male waxyaabaha qaar laga yaabo inay kugu cusub yihiin waxyaabaha qaar waa wax alla laga magan galo marka adiguna ka fooljigno waaye marka haddaad jeceshahay waanooyinka noocaasa
nala soo fariiso. Of course ragguba waa welcome. channeladeena kale way nala fadhiyaan. khayr allaha siiyo, way niciseeyaan, caayb ma leh, dhib ma leh, problem ma leh, muudkoodaas iska fadhiyaan. wixii ayaga ka quseeyo ayay halkaa kala baxaan. hase yeeshee barnaamijyadu hadday kululaadaan, anigu hadda malihi barnaamijyo kululaan soo wadaa, laakiin waxaa laga yaabaa qof walba iyo mowqifkiisa barnaamijyadu inay kululaadaan, dadka qaar inay u arkaan waxyaabaha qaar ay dumarka ka cawdaan, maadaama meeshan qeyb dumar ee tahay, waxa dumarka ay ka cawdaan inay been tahay, in la cadeyn doono ama la sheegi doono waxa dumarka lagu inkiro, waxa dumarka aan laga garab siinin, waxaan dumarka laga caawinin, waxa dumarka lagu daayay. howl badanaa dumarka lagu daayay aynan ahayn in lagu daayo, ay dumar badanna aada uga cawdeen. ciladihii hadda tii xale aan ka hadlayo kale, chemical pregnancy-ga channelkeena kale maamuwaano, in aan cadeynayay oon arkay intaasoo kun oo gabara oo la yiri waa beenteed, caada qalqalay qabtaa, ama dhiiggiiba ka tegi rabo, ama waa qof weyn oo duqa, ama iyadoo kaleba ma dhashee, maxaa cimrigii lagu dhalayo ma joogtee, gabadhuna ay dilan arkaysay, loo yaqaano chemical pregnancy ama chemical pregnancy. marka intii aragtaa taqaano, haddii lagugu beeraayay ay soo halaabeen ilmihii, haddii ilaahay adiga kugu risaqay ay soo halaabeen, dadku ilaa ay share information sameeyaan, aqoon kororsi lama heli karo. aqoon kororsiga laguu sheegayo waxa waaye in la kala aqoon kororsado, inaan anigu hadlo, inaad adigu hadasho, in wixii roon aan kala soo dhex baxno. marka khayr allaha ka dhiga amuurta. aniga dumaraa la shaqeeyaa, rag lama shaqeeyo. dumaraa isoo wacdo, dumaraan u jawaabaa, dumaraa ma aragtay arkay problemka haysto. aniguba qof dumaraanahay, waxyaabaha qaar ee gabdhaha sheegayaan anigana waa arkay, ama daday ku dhacdaan arkay, ama anayba lafahayga igu dhacday. marka waxba kala qarsamayno, dhibaatada adduunka ciday saameynin male. aniga hadda kuma lihi oo aniga dhagaanahay, wax iga qaldan ma laha, weligay dhib maarag, weligay waxaa kuma lihi. dhinaca u kacdaba dhinacay iga saameysayaa jirta, haddayna iga saameyninna ilaahay iima keenee inaan ka foljignaado waa istaahil, waa wax habboon. marka adiguna same, haddayna ku saameynin ka foljignaa, waa hadday ku saameysayna saaxiibay dhexda xiro, saasaa dhibka looga baxaa waaye. aan iska walaashano, aan iska gacashano. maasha allah, aaladda waad aragteen siyaabo badanaa loo isticmaalaa, dad badanaa fadhiyo life usoo fariisto, waqti badan geliyey aaladda iyo inay soo galaan. marka annaga waqtigeena waxaan u gelinaynaa, busy-aan nahay, aadaan u daalanahay, mararka qaar codkayga ka dareemi kartiin in aan daalanahay. waxaan usoo rooraana wax kale maaha, inaan adiga ku jeclahay, inaan kula jeclahay wanaaga iyo farxadda, iyo inaad noloshaada ku mashquulsho, mashquulna ku noqoto, maqsuudna ku noqoto. waa muhiimada taas. maanta haddaad noloshaada ka cararto, waxaa sugtaa layiri way ku sugaan. maanta noloshaada qaybo badan oo aadan waxba ka qabanaa jirto, ama aadan usoo jeesan, iyo in lagu xasuusiyo adduunka in laga tagaa, waxyaabo badan inaa kasoo dhacsato inay fiican tahay, hadduu ilaahay ka raali noqdo. gabdhihii aa ka wehesho laheyd ama ka gacasho laheyd, inaan annagana ka mid nahay. noo imow, cidna waxba kuma weydiisanayso. of course grubyo badanaa jiraan, brograamo badanaa jiraan, intaa jirto fadhiiso. si qaasa si boos haddaa u baahan tahayne waddo loo maraa jirto. khayr allaha ku siiyo, adigu untaada usoo jeeso. wax kaloo lagaa raba ma jirto, inaad adigu maqsuudo, noloshaada dib u fiiriso, ilaahayna ugu xamdido wuxuu alle ku siiyey. sidoo kalena inaad adigu ogaato at this age, xilligan aad jirtid, da-aadan aad jirtid, inaad la soo baxdo hadduu ilaahay yiraahdo maskax badan ood ku maamulato noloshaada. waxaa laga yaabaa in maaragtay wax un kaa tanbadiyaan, haddayna maanta kaa tanbadinin beri waxaa layidhi kheyr waxba kuuma dhibee shar u tookaay. marka beri ka gaashaama dhibaatada adduunka. inta badan waxaa jirto waxna dago markay noloshu wanaagsan tahay, muufada maraqa kuugu jirto, nolosha dhan waa ka indhalaada, ma ogid, kama foljignaatid beri, uma tabaabashaysatid beri, wax inay isbedelayaan kuma talageshid. dhag wixii markay isku dhexyaacana waagaagu baryaa. dumarka inta badan arrinkaas aaday uga cawdeen, dhibaatana way kala kulmeen. gabdho badan oo geesiyaala, maaragtay diracyo ah, dadaal badnaa, wanaag badnaa, wixii oo dhan way isdardareen. da-aa kaa daba imaanayso, dhaqaalaha burburaayo, qoyskaa kala tagaayo, ciladaa imaanayso. marka wixii gabar yaro ma oga maanta, yaa og marka ilaahay ka sakow gabadhii kaa horreysay ee soo martay. marka waxyaabaha la qorayaa waxaa kamid ah
ma u haysaa war arrimahaas oo kale war ma u haysaa maanta hadday gabru dalaaq ku dhacdo meel ay ka raadsanaysa informationka qalbi dejinta ma jirto cid noo diyaarisa ma leh bugaag laga qoray ma leh website loo aado ma leh community lala galo afaarahaas oo xal kuu raadinaysa ma leh kibir iyo qooqa loo yaqaana haddaad ka hadasho ciladii aad kala kulantay furiinkii aad soo martay ama furiinka kugu dhacay xanuunkiisa adaa isku qabo infact lamaba rabo inaad jabto inaad marooro dilaacdo inaad ooydo inaad qaraacanto lama rabo waxaa la rabaa inaad qurux badnaato ood garoobnimada qurux ka qaado kalsooni ka qaado xoog ka qaado tabar ka qaado maalinna aadan u hungoobin sawjkaagii sawjhow waboo tagay bay ninku furay maxaa ku daba dhigay qalbigaa kaa raacaa laguma leh dhaqaalihiisaad u hungoobaysaa lama leh ilmihiisaad ku tabcaanaysaa lama leh waad u baahanaysaa waad tabaysaa laguma leh adaa isku qaba waxaaga aamus waa hush hadal dabaa sheegi ninku furay waxba kuuma agyaalaani marka gabdhaha waxa ay ka cawdeen waxay tahay hadallo aanan la aqoonin si loo sheego sida arrimahaas oo kale gabadha dhibaatooyinka nolosha ay kala kulanto isbedelkeeda mataqaana xataa qaabay u raadsata mataqaano isku duuduuba adaa isku qabo waa waxaaga marka channelkan waxaa loo diyaariyey su-aalahooda in jawaabo loo helo in laga hadlo wixii ay kala kulmeen iyo wixii u xal ah hadda haddii la yirahdo laga hadlo gabar la furay furiinkii inta badan gabdhuhu waa defend way isdifaacaan waxay leeyihiin so naftu waxay rabtay inay tiraahdo yes wiil fiican oo ahaa calafkaa iga qaaday amaraa nagu kala dhacay waxba ma aha calaf kaloo galay anigaa qaadi waayey sidii aan ku baxay ama go-aanaanba kala qaadanay waa kala tagnay dadkii qanaaco kama helaan furiinkii dhacay ee waxaa lagu soo gabagabeeyaa war idhaaf iyo naa idhaaf ku kala taga ama haddii kale xumaan fool xumo ah marka heer waxaa Soomaali isla gaareen ee maxkamada isla tagaan gogol iyo oday loo wacay waa adkaatay sheekadaas hadda marka maxkamadaha isla taga waa sharciga u adeegsan waa ninka marka dhibaato badan waxaa jirta dadku aynan ka hadlin ay la fadhiyaan cilado badan waxaa jira xanuun oo gabdhuhu qariyaan oo qaabay u sheegaan inaan aqoonin marka commonka waxa nooga dhumeen su'aalo badan jawaabihii hadii lala fadhiyana meesha lagu sheegaa waxay noqotay meel la wada fadhiyo oo dad badan fadhiyaan oo aanan si toos ah hadii dumarka loogu adeegane ay ka timid maaragtay waxa ka yimid dumarka bas leema loo adeegaa meeshaan marka daas waa channelka loo sameeyay dumarka noocyo badan raali ahaada dee weli wax isku dhaxyaacsan yihiin insha Allah shaqooyina ku socdaan channelada la soo wado qaar public maaha ma arki kartiin waa private laakiin markii upload loo sameeyo program loo diyaariyo insha Allah arki doontaan khayr badan iyo farxada Ilaahay idinka rajeena inti kulay la ordi karaa la ordaa inti xal la raadi karaa la raadina adinkana si boodaan laga rabaa khayr Allah idin siiyo qof walbo soo galay channelkan oo dhageysto dhageysigaano fadlan subscribe samee afaaraha dumarka haduu ku quseeyo insha Allah lama soo sheegi karo lama soo koobi karo ciladaha dumarka ay ragga kala kulmeen inaan isqabano oon ragga ka leexano oon u dhimrino oon isfahano way fiican tahay gabdhaha qaar markay dhahaan maamo waano anigu nin baa i qabo nin kalena waa soo maray ku kalan soo maray ama gabar ay tiraahdo sawja ii jooga nina i qabo waana fahmi laaya guurka inaan dumiyana dhuunta ma marin karo maxaan sameeyaa waxa laga yaabaa gabadhaas inuu hurdaysan inaan komankeeda arkay anoo daalan inaan arkay anoo shaqo kala gacan ku hayna arkay inaan u jawaabi waayay inay sheekadeeda ay tahay qiso dheer u baahan tabigay dhageysato taas waay inay ninka iyada dhibayso reasonkay u dhibaysana ayna aqoon inay iyada gal daran tahay in laga gal daran yahay inayna kala aqoon walaashan xaqay u leedahay in loo jawaabo inay ogaato rog dumarka loogu jawaabo su'aalaha qaarna dabcan way noqoseeyaan gurigeena inuu qaboobo inaan qanaaco helno su'aalaheena in laga jawaabo inaan isfahano kulli waa wax muhiima mararka qaar runtii waa la gal dareystaa gabdhaha xaq darro badanaa loo geystaa mana ka hadli karaan waxay sameeysan mataqaano gal iyo gal darraba adiga gal daranay noqoto sheekadii marka bal hal isku dhimriyo insha Allah channelkan qofkii soo galo fadlan support barnaamijyada qaarkood waa caafimaad qaarkood quseeyo dumarka ragguna haday yimaadaan waxaan ka codsanaa inay dhageystaan haddaad xaas leedahay ciladaha qaar ee gabdhuhu kaa tabanayaan haddaad noo timaado barasho wanaagsan soo dhawow khayr Allah ku siiyo ka leexo maskiinta u dhimri iyadoo qayliyeyso iyadoo xanaaqsan iyadoo daalan
caawi asxaan badan ha lagaa helo anigu malihi channelka rag allowed ma aha of course they allowed channeladeena kaleba way soo galaan wayna la fadhiistaan of course siboodkooda waa ducada qalbiga haddii xataa soo qoraan waa welcome ay dhahaan gabdho waa mahadsantihiin dadaalka wada haddaan waxyaabaha qaarkood ay u arkaan ragga in galdarro lagu haayo of course hadday nala fadhiyaan xaqay u leeyihiin dhahaan raggu saas ma wada aha dumara ogaada of course intaasaa nagu filan aniguba nin ragaanahay dhibkaasaad sheegaysaan sawjadayda uma quuro walaasha in lagu sameeyo ma rabo hooyada inuu aabahay ku sameeyo ma rabi lahayn yaas waa idiin garaabeynaa laakiin ogaada ragga dada jecel wanaagiina iyo waxtarkiina simple intaasaa ku filan waxaa soo gali kara dumar xanaaqsan oo dhahayo ragga wax la guursado maaha dhibaataan kala kulmay rafaadaan kala kulmay raggii oo dhan may wada arag gabadhaas taasaa nagu filan in lagu yiraahdo intaasoo milyan oo rag oo Soomaaliyeed kumay wada guursan midii labaa kala kulantay ama midaa kala kulantay isi marka dar alle ku deg dumarka Soomaaliyeed oo khayr Allah idin siiyo waa idin baaqay waxaan idinku baaqay channelkan adinka niliin caleema saaray niliigu baaqay niligu soo dhaweynayo soo dhawaada fadlan khayr Allah idin siiyo jacayl nilii qabo qaybtaana niliigu diyaariyay ilaahayna ha noo soo dhiibo san hore idinku sheego mar walbana idin sheego dhamaan waa inoo duco adeeg wanaagsan gabdhaha murugaysan murugada Allah idinka dulqaado gabdhaha aan murugaysnayna muruga alla nama bada dhamaanteen khayr Allah idin siiyo noloshaana Allah noo qafiifiyo wanaageedana Allah na siiyo aan isku duubnaano isku duubniya wax lagu qaban karaa ducadu waa muhiim isku duubnigay ka mid tahay khayr Allah idin siiyo qofkii si gooni ii rabo inaan ama ula shaqeeyo ama su'aalo qaali ii soo gudbiyo fadlan magacaaga ii sheeg codkaaga soo duub khayr Allah ku siiyo barasho wanaagsan haddaan ugu cusub tahay haddaa saaxiib la ahayd oo jaanis hore iigu weysane insha Allah waa isla joognaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh